Assalaamu calaykum. Magaalooyinka ugu da'da weyn adduunka. Magaalooyin waqti iyo qarniyaalo badan soo jiray ayna ka soo ifbaxeen ilbaxnimo badan oo bini'aadamku sameeyay. Haddii ay ahaan lahayd dhismayaal iyo sheekooyin hore oo ilaa hadda saameyn ku leh jiilka nool. Waxaa halkan ku soo gudbinayaa 12 magaalo ee ugu da'da weyn dunida oo dhan. Ilaa iminkana ay ka jirto calaamadihii iyo ilbaxnimadii ka soo jirtay waqtiyo badan. Ku soo dhawaada mawduuceena maanta. waxaa ilaa hadda la isku khilaafsan yahay magaalada rasmiga ah ee ugu da'da weyn, laakiin waxaa la isku raacay in 12 magaalo ay yihiin kuwooda ugu qadiimsan. waxaan ku bilaabayaa Dimashq ama Damascus, Syria. Dimashq waxaa la rumaysan yahay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn welina ay ka jirto ilbaxnimadii hore, waxaana si la arki karo uga muuqda taariikhdii hore. waxaana la deganaa 11,000 oo sano ka hor. waxaa soo maray xukunno iska kala dambeeyay oo saameyn ku lahaa dunida. waxaa laga soo qaadan karaa in ay ahayd caasimadii dowladdii Islaamka ee Umayyadeed. maanta waa magaalo aad loo degan yahay, waana hoyga 2.5 milyan oo qof. 2008 waxaa loo aqoonsaday hoyga dhaqanka ee Carabta oo dhan. Ariixa, Falastiin. darbiyada difaaca ee magaaladaasi ku yaala oo la dhisay 6800 oo sano dhalashadii Nabi Ciise ka hor ayaa xaqiijiyay in magaalada Ariixa ee dhulka Falastiin ahayd magaaladii ugu horeysay ee darbi lagu wareejiyo si difaac ay ugu noqdo. sidoo kale waxaa laga helay cadeymo kale oo sheegaya in magaaladaasi la deganaa 11,000 oo sano ka hor, taas oo ku soo daraysa magaalooyinka ugu qadiimsan dunida oo dhan. Ariixa waa magaalo ilaa hadda la degan yahay, dhulkeedana uu qallayl isku bedelay sababo lagu sheegay xilliga aadka u badan oo ay deegaan u ahayd bini'aadamka iyo in ay ka hooseyso heerka cabirka badda. maanta magaalada Ariixa waxaa ku nool 20,000 oo qof. Xalab ama Aleppo, Syria. website-ka rasmiga ah ee magaaladan waxa uu adkeynayaa in magaalada la deganaa 8,000 oo sano, laakiin calaamadaha iyo raadadka qaar ee ku yaala dhanka waqooyi ee magaaladan waxay cadeynayaan in magaaladan la deganaa 13,000 oo sano ka hor, taasoo micnaheedu ah in Xalab lagu tilmaami karo mid ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan oo bini'aadamku dego. waxa ay caan ku ahayd ganacsiga iyo ciidanka, maadaama ay u dhaxayso badda dhexe ama Mediterranean Sea iyo Mesopotamia. Xalab waxay ahayd wadnaha dadkii noolaa xilliyadii hore. waxay ku nagaatay inay ahaato magaalada ugu weyn ee Syria oo dhan. Athens, Greece. magaaladan waa magaalada dadkii hore ee caanka ku ahaa filosofiga iyo bilaabashadii ilbaxnimada qaaradda Yurub. magaaladan waxaa ka soo jeeda filosofarskii ugu caansanaa ee adduunka soo mara sida Socrates, Plato iyo Aristotle. magaaladan waxa ay magaalo ahayd 7,000 oo sano ee la soo dhaafay, laakiin in la dego waxa ay bilaabatay 11,000 oo sano Nabi Ciise ka hor. wali magaaladan waa magaalo koraysa dhanka bulshada. Argos, Greece. waxay ahayd magaalo saxmad badan 7,000 ee sano ee la soo dhaafay. Argos waxa ay tartan kula jirtaa Athens noqoshada magaalada ugu qadiimsan qaaradda Yurub. waxay ahayd magaalo dhexdhexaad ah, aanan jeclayn inay dagaalanto. waxa ayna ku fiirsatay Athens dagaalkii u dhaxeeyay Greece iyo Persianiska. Plovdiv, Bulgaria. Plovdiv waxaa la oran jiray Philippopolis, waana magaalada ugu weyneed ee Roomaanku deganaa, inkastoo ay xilli soo xukuntay dowladdii Ottomans. waa magaalo taariikh leh. cadeymaha deganaanshaheeda waxa uu gaarayaa 6,000 oo sano ka hor in bini'aadamku deganaa halkaas.
maanta waa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Bulgaria. Baabulas, Lebnaan. Inkastoo ay jiraan cadeymo badan oo sheegaya samaysinka magaaladan 7,000 oo sano ka hor, haddana 5,000 ee sano ee la soo dhaafay waxay ahayd magaalo weyn, waxaana lagu dari karaa inay ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn adduunka. Sidon, Lebnaan. ugu yaraan magaaladan waxaa la qiyaasaa in bini'aadamku tagay 6,000 oo sano ka hor, waana magaalo aad muhiim u ah juqraafi ahaan. waxay dhacdaa badda Mediterranean Sea, waxaa ku yaala dekad aad muhiim u ah, taas oo sababtay in magaaladan marar badan ay qabsadaan awoodihii jiray xilliyadii kala dambeeyay sida Assyrians, Baabiliyiinta, Masaarida, Greek, Romaniska iyo Ottomans. maanta waxa ay hoy u tahay 200,000 oo qof. magaalada Rey ee Iran waxa ay ku dhex taalaa magaalada caasimadda u ah Iran ee Tehran. culimada taariikhda waxa ay sheegaan in waddanka Iran uu bini'aadamku tagay 8,000 oo sano ka hor. magaaladan ayaa qani ku ah muuqaalada taariikhiga ah sida buurta Jismih Ali oo 5,000 oo sano jirta, iyo dhismaha Gabri Castle oo iyana 3,000 oo sano da'diisu yahay. magaalada barakaysan ee Qudus waa magaalo soo koraysay ama soo jirtay 4,000 ama 5,000 oo sano. waa meel qaas u ah diimo badan, khaasatan diinta Islaamka. waana magaalada saddexaad ee barakaysan kadib magaalooyinka Makka iyo Madiina. waxaana ku yaala masjidka Aqsa oo ah masjidka saddexaad ee barakaysan kadib Kacbada iyo masjidka Nebiga. waana meeshii Nebiga uu sii maray habeenkii la dheelmiyey uuna kula kulmay nebiyada oo dhan. Qudus waxay kaalmaha hore ugu jirtaa magaalooyinka ugu qadiimsan dhulka aan ku socono. maanta waxaa xoog ku haysta sheegtayna in ayagu leeyihiin Yahuudda. magaalada Liuwang, waddanka Shiinaha. tiro magaalooyin ah ayaa la dhisay 5,000 oo sano ka hor Yurub iyo Bariga Dhexe, laakiin xilligaas Liuwang waxa ay taagnayd ayada oo magaalo weyn ah. waxa ay ku taalaa dhex bartamaha waddanka Shiinaha, waana magaalada ugu da'da weyn waddanka, waana magaalada taariikhda ee dowladda hanti-wadaagga China. waxa ay u dhaxaysaa labada webi ee waaweyn ee Liu iyo Ying. juqraafi ahaan waa magaalo meel aad u fiican dhacda gudaha waddanka Shiinaha. magaalada Varanasi, India. markii la eego taariikhda dalka India, Varanasi waxa ay dhisan tahay in ka badan 5,000 oo sano, waxaana loo tixgeliyaa magaalada ugu da'da weyn adduunyada. waana magaalada dadka haysta diinta Hinduuga u tagaan cibaadada. waxaa muhiim ka dhigay magaaladan u dhowaanshaha webiga Ganges, taasoo fududeysay in dadka imaadaan xilli hore.